kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal meel walba dadweynaha aad ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka maxaa cusub eed kala socon jirteen wararkii ugu dambeeyay ee dadka caanka ah ee Soomaalida iyo adduunka. Xildhibaanada aqalka Koongareeska ee dalka Mareykanka ee laga soo doortay Minnesota Ilhaan Cumar ayaa soo gabagabeysay hanti suuqa ku jirtay kuna shaacisay barteeda Instagram-ka inay la aqal gashay saygeeda cusub ee Tim Maynard oo ah mas'uulka gacanta ugu haya ururinta tabarucaadka oo laleeyahay doorasho. Ilhaan ayaa faafisay sawir uu kula jiro saygeeda cusub waxaana ku hoos qortay waxaanu ahayn lamaane siyaasadeed haddana waxaan noqonay lamaane ku midoobay nolosha aad ayaan u faraxsanahay alla ayaana mahadleh. xiriirkii Ilhaan iyo saygeeda ayaa dibadda u soo baxay August sanadkii hore kadib markii furniin ka codsatay xaaskiisii hore oo la dhaho Beth Jordan oo u haysay hal wiil xilligaas oo ay Fox News u sheegtay inay ogaatay inuu xiriir ka dhexeeyo ninkeeda iyo xildhibaanada Ilhaan oo ay waqti badan wada qaadan jireen sidaa awgeedna ay doorbideen inay iska furto. Ilhaan ayaa iyaduna bishii Oktoobar ee sanadkii hore iska furtay Axmed Xirsi oo ahaa carruurteeda aabahood oo sanado badan ay isqabeen iyadoo sheegtay in aanay sii wada noolaan karin xiriirkooda nololeedna uu burburay. Axmed Xirsi ayaa dhankiisa isaguna Disembar gudaheedii kula aqal galay Soomaaliya gabadh lagu magacaabo Saciido oo kasoo jeeda beesha Madhibaan. guurkan Ilhaan ee cusub ayaa dhaliyay buuq iyo muran badan maadaama aanu muslim ahayn oo uu yahay Kristan. Haddaba kuma Tim Maynard Tim wuxuu ku dhashay dalka Mareykanka 1981 wuxuuna bartay culuumta siyaasadda isagoo ka diyaariyay digriga iyo masterkiisii jaamacado ku yaala New York iyo South Africa. Wuxuu guursaday 2012 Beth Jordan oo haysa wiil 13 jir ah waxayna kala tageen 2019. wuxuu leeyahay shirkadda E Street oo ku takhasustay xayeysiinta iyo shacbixinta iyo dejinta iyo qaabeynta ololaha doorashooyinka waxaana hore ula soo shaqeeyay gabadhii ay bedeshay Ilhaan Cumar ee Koongareeska. hantida Tim Maynard waxaa lagu qiyaasaa $1.3 milyan. Producerka iyo musicianka caanka ah ee Redwan ee asalkiisu yahay Morocco ayaa soo saaray hees kulmisay fanaaniin iyo jilayaal caan ah oo Carbeed oo ay ka mid yihiin Najwa Karam, Axlaam, Sacd Almujarad, Bilqiis iyo qaar kale badan. heestan oo khuseysay mashruuc samafaleed oo maalgelinayay Maxamed bin Rashid waxaana xusid mudan in xaflad weyn loogu qabtay Dubai. xafladaas oo looga dhex ururiyay tabarucaad dhan 22 milyan oo loogu deeqayay cisbitaal cusub oo laga hirgelinayo Qaahira kaas oo khuseeya xanuunada wadnaha. xiddiga Hollywood Tom Hanks ayaa bartiisa Instagram-ka ku shaaciyay in isaga iyo xaaskiisa Rita Hanks oo hadda ku sugan Australia ay dareemeen calaamado shabaha kuwa hargabka oo ay iska baadheen coronavirus loona xaqiijiyay sidaa awgeed hadda loo bilaabay daaweynta iyo karantiilka inta ay ka bogsanayaan. wuxuuna intaa ku daray inuu taageerayaashiisa la socodsiin doono hadba xaalku siduu noqdaa. ciyaartoyga caalamiga ah ee Cristiano Ronaldo oo safar degdeg ah ku tagay dalka Boortaqiiska kadib markii hooyadii oo halka ku sugan uu ku dhacay faalig. dhanka kalena saxaafadda caalamka ayaa qortay Ronaldo inuu iskarantiilis ku sameynayo u gaar ah kadib markii corona laga helay saaxiibkiis Daniel Rugani oo ka mid ah ciyaartoyda kooxda Juventus. xiddiga Bollywood Akshay Kumar ayaa xaqiijiyay inuu dib u dhigay soo saaridda filimkiisa cusba ee Sooryapanshi sababo la xiriira xanuunkan coronavirus ee adduunka sida waalan ugu faafay. si kastaba ha ahaatee xiddigu muu shaacin taariikhda filimkaas la sii dayn doono. gabagabadiina waxaan idin leenahay daawadayaal haddaad nagu cusub tahay ay tahay markay koowaad fadlan nagu soo biir oo taabo subscribe iyo gambalaalka si aanay ku dhaafin videoskan idin soo wadno. sidoo kale ha moogaan bogaggan ku leenahay baraha bulshada gaar ahaan Facebookga iyo Instagram-ka. sidoo kale nagala soco Snapchat.